السلام الله عليكم أصحابتا كسو دوادا channelka mar kale iyo muuqaal kale oo cusub caawa waxa marti walaashay Nasro iyo Abwaanjiir oo aan ku soo dhaweynaya halkan soo dhawaada asxaabta salaam kilas waan dhownahay asxaabtaada dhammaan waa salaameynaa dabtii markaan cashayna kadib caawayaan waxaan iska go'aansanay inaan asxaabta u qaraxayno oo kulanka quruxda badan aynu qaadano marka asxaabta dhammaan waa soo dhawaayayna waxaan leenahay mahadsantiin aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Abwaanjiir soo dhawaada asxaabta hay Nasro ku soo dhawo channel assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaalkilaas aad baa u mahadsan tahay waxaa farxad iyo caawartina channelka soo muuqdo dhammaan inta ku xiran channelkaadana aways wanaagsan aad iyo aad ayuu mahadsan tihiin soo dhawaada ayaa anigan idin leeyahay aniga mas'uulka asxaabta waxaan filayaa sidoo kale inay idin soo dhaweyn doonaan Abwaane waxaan doonayaa inaan barnaamijkeeni aan guda galno horta magaca Abwaan markay dadka maqlaan waxa ku soo dhacayso gabay hees iyo wax un suugaanta la xiriiro bal hadii caawa aan ku dhihi lahaa wax un kaga qayb qaada barnaamijka maxaad aad isdhihi lahayd yacni dhanka suugaanta wax un ma jira aad kaga qayb qaadan kartaa isleed okay bari dhexe waxaa jiray maasayr oo aan sameeyey maslaa markaa waxay masajacay kabran aad u jeclaa baa u sameeyey marka aan waayay kadib bal hal iyo labo erayadeeda si dadka ay u maqlaan jacayl markay maqlaan dadka dhan waxa ay isdhahayaan bal marka waxay leedahay barashadii gargaarkii gurmud fast aidkii galabteedii koowaad galaaska soo galay anigoo ku garanayn goor aan jaleecada kula gaaray aragtida soo dareen imaankiina soo jacaylku garab iyo gacal iyo walaalnimo noqon muguuraan gurigii markaan tagay gruubkii qaraabada soo gooni kama noqon cilmi gaaristeedii soo cudur meedkeen aad iyo aad mahadsan tahay Abwaane Abwaanka xujadii koowaad uu ka soo baxay haddana Nasraan doonayaa bal inaan weydiiyo aniga laftirkeyga waa la weydiin doonaa oo waan ka jawaabi doonaa Nasro beentii kugu weyneed ay sheegtay maxay ahayd isleed wali horta been u sheeg walaalisa ina dhaamano maleynaya been saa u weyn maan sheegin maad ka daysan maxaa isleedahay bal hal iyo labo beentii kugu weyneed imid aad sheegtay horta inta caqli iyo garaad aan lahaa beentii ugu weyneed aan sheegay aan dugsi dhiganaya sheegay أنا بقيت عشر كيلوات كذا معلم كوي قراعة عندها معلم وحين وحين كود رسني صلاة ويصير قراعة معلم ببدأ 10 كذا ونكسب بحين عد كل كود رسني سمفل هذا طبعا 10 كي كسب بحين بنت أسويت بنتي وين أدي أدبو ما سنتها يا أصحابتا سودو هذا مركلة أدي أدكل سبتين channel كا فضلا سبسكرايب لها مقال كدي أتكلشينا لايك هديسا شير وانا شير قرينيسا كلها فرحين هنقول فرحة ولا ادي قارسي ولا الكايسة ايوه ده اللي ربطه كلس waxaa ku weydiinaya waxay dhaanteyntii ugu weyn ee aan sheegay waxay in aan dugsi dhigan xilliga saqiira baan ma waa inta ka xasuustay ilaa kulli waan ogaay beena badan bay sheegtay laakiin beentaas aan xasuustaa bay tiri adeeg mar wali been sheeg yo aniga been sheegay wali الله طلب بل وايحي ان اصحابتا حدنا بل ايغان كدغيسنيا aniga su'aasha doontaan way weydiin kartaan oo idinka jawaabaan hay Abwaan Sooda kilas caaw beenay bagashidan daab hay may waxa rabto weydiin kartaa su'aal kasto ay weydiiso kaaga jawaab asana waa weydiin karaa kilas su'aal adag oo weydiinaya hay saahanin dhalinyaro baa waxaa jeceshahay soomaali inaad xulatid hablaha mid gabadha xulaleed maxaad ku xulaleed waa su'aal sina u adag sina u fudud laakiin ani gabadha aan xulanay saddex waxyaabood uma inta badan mid way ii qarsoon tahay labana waan kuu sheegayaa okay midda koowaad horta anigaan fool xun gabar fool xun ma rabo qodobkaas waa midda kale ee aniga ma jeclin gabdhaha inta badan yani daawadii waxa isticmaalo marka gabar at least ay maarin natural ani caawa latini nooc Soomaali ha chocolate miya su'aasha midda yani qodobka saddexaad anu ii qarsoon insha Allah ha insha Allah waxaan ku qarsoon ka fargelin doonto way waa sidaas walaal beentaadu weyn noo sheeg iyo beentii ugu weyneed aan sheego horta been ma xasuusto laakiin maalin baa waxaan xasuustaa runii been waxay tamoog laakiin waa isku badbaadinaya horta haddaa isku badbaadinaysa beenta waa way banaanta soo ma
been aan isku badbaadinayay been run u eg waa laakiin been run u eg baan sheegay laakiin been caadi ma sheegay ma jirin oo weyn ma jirin abwaane waxaan is leedahay adig fanka Soomaalida waa uu ka khaldan yahay no su'aashaas dhabta waa su'aal isweydiin mudan maanta waxaan aragnaa fanka Soomaaliya meesha uu marayo iyo xilligii hore soo tahay marka waxaaba jirtay maasay oo aan ka sameeyay oo aan xitaa weli dhammaystiran socoto aad iyo aad maasamaha waa gabay ka sameeyaa jiro gabayga marka waxay leedahay hada gabay suugaantu waa haybad gooniye waa hiba ilaahay baxshoon ruux walbaa helini iska hoori maahana murtidu waa ku gooniye qarnigaasi way hogtay oo hil alla baday ma garan mid kastoo hadlaa waa inuu horiyo suugaan sayidkii iyo abwaanadii hore hagayay suugaanta yam iyo haadhaydiisii baa ciidda hoos galay marka ma sidaas dheer baa jirto way soo socotaa aad iyo aad dhabtii waxyaalo badan bay filan karaan Soomaha marka asxaabta oo dhankaaga oo dhanka suugaanta aad iyo aad waay halkii halkaas aan uga baxna su'aashaasi caadigeed Nasro markii kuugu horeysay shukaansi aad ma xasuustaa sanadkii kuugu horeeyay ama bishii ama taariikhdii kuugu horeysay shukaansi aad walaal bish ma xasuusta laakiin sanadkee soo bilowday shukaansi labada kun toogi ilaa hada shukaansanaysa ilaa abtino shaqataga waaya abwaane ma xasuustaa xilligaad shukaansi tagtay والله اني عمرت سؤال اسمه كان وسؤال انا قبل اسكت شو كان صار مبارسه يعني دنك shukaansiga horta iskuma fiicnin laakiin waxa su'aashaasi diin weydii waa qadar suuqa waa qabiir jecel wax badan baa laga faa'iidi karaa nick li cabdal sida aan ognahay horta dhanka jacaylka aad baa ugu wanaagsan tahay aad iyo yow jacaylka kuma wanaagsan yaa ka dhaxgala jacaylku uu idibay isaga ay dibay jacayl isticmaalka way qofku dib uu ku wanaagsan yahay yani waxa laga weydiiyaa waxyaalo badan baa laga fahmay markuu ku dhibay laakiin inta badan uu weydiiba ma garanayo kula dagaalsan yahay soo weydiiyo kula asxaabta qaar badan oo ila mid ah waa helayaa oo maleen may inta daacada ah soo dhiba waxa ku weydiiyay barigi aayareed inta qaan gaaray hasaawul sabiti haniyo waxa jiray iskuulka horta markii la dhiganay waxaan fahmi waayay inuu shukaansi ahaa iyo wuxuu ahaa ma kala garanayo laakiin wax yar oo daacada jirta gabadha telefoon ma jirin oo aan kuma soo gaarin telefoonada laakiin gabadha iyo wiilka iskuulka isla dhiganayaan waa isku fasal waad ka helaysaa gabadha hadhow kale waxaad balaminaysaan waxaa leedahay aan isku imaana salaada maqrib markii laga baxo meel heblaha soo istaagaya hadda markii telefoonada soo baxeen oo dad weyn aan noqonay ma garanayo wax qaldoomay laakiin waagaas jacayl yar oo daacad jacayl yar oo aad musta gabadhi ugu horeysay shukaansan iskuulee ma xusta magaceeda jeegada adoo gujiga ani gabadhi ugu horeysay samsam baa la jiray ma garanayo hadda ay maqlayso meel meesha joogto samsam ku salaamaya Kenya joogtaa filaya xilliga ma garanayo in reer yaalay macquul gabdhaha wiilashu way ka hor guursadaan annaga ma ku salaamayna samsam waa ku salaamaya meel walba joogto aad iyo aad waxa adiga ma xusta magaceeda يعني مقعد ها مقعد فشلت وتنازعت وحاجة مقعد مقعدني وحالي جري عايشة اللي جري نصر ما حسوستني كيف هو ليش ما هي ولا لا ما حسوست ترى ذيك بديني بمعزوز أقدر تنظر ما هي ولا صاير يسكتوجن قبلها يعني من قياس وكان سبحان الله قلت ولا رجع نقدر رجع وكان سبحان hablaha wuxuu waa daacad nin bay haasaa la sameynayna xiriir jecel la sameeyay ilaa ninka ay ku gaaraan ama meel cad soo dhigaan ama meel uga soo tagaan horta mid kale ku degdegaan laakiin ninka mid buu la haasaabay meel kale brimid shidan buu Facebook ama meel kale ku arkay adun buu dhihi keep going horan baa la socon waa ka diiday ma xayuutatik waxaan soo gaaray gabagabadii barnaamijka waan soo gabagabeynaa asxaabta waxaan filayaa inaad waqti fiican nala qaadateen Nasro iyo Abwaanjiir waa u mahad celinayaa aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waana farxad bay tahay inay channelkeeda ka soo muuqdaan intaan ugu kulmi doono barnaamijkiisa xiga asxaabta maxaad ku leedahay share comment jacaylka midoob intii ku mashquulshane maxkamada saareen aad iyo aad asxaabta aad bay u mahadsan yihiin intaan ugu kulmi doono barnaamijkiisa xiga amaana Allah